wafdi uu hogaaminayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdinaasir Xuseen Geedi oo ay qayb ka yihiin wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Galkacyo ayaa booqasho ku tagay degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug. wasiir Cabdinaasir oo u kuurgelayay xaaladda degmada iyo baahiyaha ka jira ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada Bacadweyne. sidoo kale wasiirku wuxuu booqasho dhiirigelin ugu tagay ciidamada deegaanka oo dhawaan al-shabaab kula dagaalamay degmada Bacadweyne isla markaana ka hor istaagay inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada Bacadweyne. gudoomiyaha degmada Bacadweyne Axmed Daahir Macalin oo wasiirka ku wehelinayay booqashada uu ugu tagay ciidamada deegaanka ee sida iskooda isku abaabulay ayaa ka warbixiyay dagaaladii ay la galeen al-shabaab isagoona dowladda Soomaaliya ka codsaday in laga taageero dagaalkaasi. mudane wasiir waxay dadkan ka kooban yihiin dad dhalinyaro odayaal culimaadudiin nin walba ayay leeyihiin waa dad ku talagalay inay difaacdaan maalkooda naftooda diintooda iyo dalkooda. waxaan marka kaaga mahad celinaynaa ka soo qaybgalka aan nagala soo qayb gashay annagoo ku sugan degmada Bacadweyne qayb ka mid ah dadkii naftooda iyo maalkooda ku bixiyay inay iska difaacaan bahalladaas ummadda Ilaahay ku imtixaanay oo aan lahayn waxa ujeedka ah oo ummadaas la khalday oo sheeganaya inay diinta islaamka dadka ku maamulayaan laakiin been ay tahay oo ay tahay inay u socdaan naftooda iyo maalkooda. dadkaani waa dad mushaar dawlad aan qaadan waa dad xoolahooda ku dagaalama waa dad naftooda u horay inay jeebkooda ka isticmaalaan wixii ay iskaga difaaci lahaayeen bahalladaas oo loo ogyahay dowladda Soomaaliya ay u taag weyday. waxaan ka codsanaynaa marka dowladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dadkaas in la tayeeyo oo la siiyo waxyaabaha ay mudan yihiin. qaar ka mid ah odayaasha magaalada Bacadweyne oo sidoo kale goobta ka hadlay ayaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ka dalbaday inay dadka deegaanka ka taageeraan dagaalada lagula jiro al-shabaab. Galmudug nimanka la yiraahdo Ilaahay khayr ha siiyo waxba aanu ka sheegnaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa wuxuu u baahan yahay ciidan wuxuu u baahan yahay baan ka rabnaa hadday agab tahay hadday wax ka walba tahay hadday dawo tahay waxaan ka codsanaynaa intii lagu dagaalamo oo cadawga la iskaga celsho waxaan codsanaynaa anagu waan daalnay dadkii culummadii odayaashii dhalinyaradii hooyooyinkii intaasba way daaleen waxaan ka codsanaynaa wixii lagu dagaalami lahaa madaxweynaha iyo xasan iyo ra'iisul wasaaraha iyo ninka ciidanka xukuumadda taliyaha Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa degdeg caruurta iyo hooyooyinka iyo duqowsha inay degdeg ka soo gaaraan hadday yeelaan sidii Galmudug ay yeeleen waxaad moodaa dadkaasi dad dawlad leh Ilaah buu leeyahay laakiin waxaad moodaa dad dawlad leh inaysan ahayn bay u muuqataa kuwa hadda noo yimid oo muslimiinta ah waxbay noo sheegeen dawlad waxeeduna waa maaragtay dambe marka bartamaha banaadir yaanoo booska madaxtooyo u birmado halkoo buu ka jiro cadawna soo buurto barqasoo wasiirkan ma baran bidixda ii jooga bil baan wada shaqaynay inuu ehelkii soo booqdo bixitaan safara Galkacyo birij maca aadli babacada markaan soo dhignay qarax ku beegan boqor ma hadis weeyaan inaan booska Mudug booqdo Bacadweyne haddana soo bartiyo boqoradii diinta hayeeshee mar baan beejka gabay buuga geliyay balaan baaro biri baan bulshada biri misiyay burcadii shabaab maalintay dhaxalka boobaysay baabuurta qaranka markay xoogga kula booday yaa u soo birmaday ciidankii baacsi lagu hayay bar soo celiyay baabuur dagaal ah ka boqol dhaafay bee kaamidii laga baqday xaafadaha buuxay balow baa ka yeeray shabaab boqonta yaa gooyay waqtigoodii Facebook yiliya ka dhigay bayla baqdin geesiyaal aqoon burinta mooyaane Bacadweyne haddaan buugga qaran baal ku qoraya
wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda Soomaaliya Cabdinaasir Xuseen Geedi oo dadka deegaanka ku amaanay sida nafhurnimada leh ay al-shabaab iskaga difaaceen ayaa sidoo kalena u ballan qaaday in uu dowladda Soomaaliya gaarsiin doono baahiyaha uuna ku dadaali doono in la xalliyo oo calanka Soomaaliga aad kor u qaadeen tawxiidkuna tawxiidkeenu uu yahay saxda ah aad noohseen horta waa idinkaga mahad celinaya sharaf iyo ciisi aad ku mutaysateen Soomaaliya oo dhan og ummadda caalamka oo dhan og in reeb cadweyne ay diideen gumeysi in reeb cadweyne ay diideen in dadkooda diintooda cirdigooda maalkooda lagu xadgudbo ay diideen waxaan la xaqiri karin wixii dawladda inay qabato la rabay reeb cadweyne qabteen waan sheegaynaa ma qarinayno wixii laga rabay dawlad ayaad qabateen dadkii deegaanka tihiin mushaar kuma qaadataan xoolo kuma qaadataan waxaad u istaagteen shaqo dawlad leedahaad qabateen waxaan rajaynayaa insha allah tii ilaahay waaba idii qoran tahaba annaga naga sugi maysaan loox maxfuudka iyo wax idinkugu qoran tahay ilaahay xaggiisa idii jirtaa tan annaga nagu dhiman horena waa u daraysaneen haddana waa qaadaynaa waana gaarsiinaynaa waa midda kalifta inaan idii imaado waa midda kalifta inaan idinka soo war doono inaan ogaado xaaladdiinna oo un soo babax dhigo ayadoo la cabsiinayo leeyahay ha tegin dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu kormeeray goob loo diyaarinaya in laga dhiso garoon diyaaradeed oo ay degmada Bacadweyne yeelanayso Idaaros Magne CBA TV Muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom